Samina mina waka waka Samina mina waka waka heesta maanta codkan saaugi markaas ku jeer TV-ga ku ceshiday dadkii cadaanka ah oo guriga ila deganaa ba jarjarada soo wada daatay oo igu soo wada garaacay markaas waxa la yiri war mashaakil ku soo booqatay maanta gabadhiiba noocii dharka Francisca Paris ku xayeysiin jiray bay noqotay marka fartuun balbalaad ka bedelay fartuun duduubka way maanta fartuun duduubka hadee garoob maanta aan lahayd marka u yartahay khayriye farmaajo isku baxsan lahaa gabadha xajmiga quruxda samcada waxa ilaahay u dhiibay gabar baatriisha ducay falaanada waxaan ilaahay haduu magac iyo maal iyo maxaa ku raada muunad kula muwaagay ya fartuun balbalaadka sideeda uu ku ekaysi lahaa oo codkaaga halaasi uga dhigi lahaa inuu dhaho bajaaj soo qaado halkaana laaxin baa ku jira bajaaj soo boqortooyo balbalaadka ma balbalaar iyo bajaaj baa dhinacoodi kara maya balbalaarka boqortooyo balbalaarka bosh soo fulin oo dhaho baahay bosh soo ful ee allah una xariistay magool laha ee saada cali laha wallahi kama samrin ila balbalaarka soo baxday boqortooyo balbalaarka wardatan heesiyo maba ahaba umaleyn maayo heestan lamida inay hore ii soo martay mana filayo inay ii damayn doonto intii Soomaali waxa weeye fanka ay dhex mushaaxaysay tan iyo qarnigii tagay hal wadiiqo biraacayay laakiin maanta ilaahay xamdigi waxa ah in wado kale la inoo jeexay Soomaalida maanta fartuun balbalaadka waxay ku soo kordhisay hip hop nooc la yiraahdo oo Mareykanka iyo dunida horumartay ee ka jira hore waa la isugu day dadka aanu dafiri maayo ilka casiqaysiyo rag la mid waa isku dayeen laakiin balbalaadka sida ay u keentay waa ugu fashilmeen oo keenan waa mashruuc shirun ku reebay ninkii shiina culayha oo doonaya maanta inuu reaction sida ugu joogsado oo ka sameeyo heesta baraha bulshada qabsatay ee ay soo qaaday fanaanada waayadii dama laga daba dhacay fartuun balbalaadka barnaamijka intaan u gudo galin waxa si xushmad la kaaga codsanaya video-ga inaad si share gareyso oo la wadaagto asxaabtaada channelkayga inaad subscribe saarto like iyo comment-gana inaad ii soo badiso bahala iga dhintay waxa way horta iga raali ahaada galabta balanteenu waxay ahayd inaan idiin soo gudbiyo reaction aan ka sameeyay heesta uu soo qaaday fanaankeenna weyn Nimcaan Hilaac oo aan runtii aad u qowday heesta laakiin reaction ka bari weyn u dhiganay sababtoo ah Soomaalidu waxay ku maamaadaa oo dhacmeed sida u kala sareyso baa loo kala qaadaa ama meel libax soo galay loo ima joogtay waa kala lixshaa liiniya caano de meel balbalaarka ay ka soo haystay oo ay timi ya Hilaac maxaa u yaala waxba dabkii baxaaya waa dab lagu qabsadaa anigu hadba fanaankii heestiisa saa loo wado maalinta baraha bulshada ay ka shidan tahay oo hadalhayntu u badan tahay taas baan idin maxaa ku qaadaa dhiga idinkaan iga soo codsaday oo yiri war Nimcaan u kaadi war bal dib noogu dhig war balbalaarka ee garinteeda warteeda soo qaada dhig iyadaan maartay marka heesteeda baan maanta dul joogsanaynaa fartuun balbalaarka heesatan waxa weeye ma mira ma laxan ba ma cod ba ma anigu ma isteel ba ma qaab loo jilay ba waxaan ku iri wax laga sheekayn karaba iyo wax lagu suureyn karaba ma jiraan waxa weeye horta fartuun balbalaadka magaca maanta ka bedelay balbalaadka waabay ahayd waxa weeye qof xajmi ilaahay u dhibay quwad waagay fanka soo gashay ahayd ma birey qaaday ma rabadaantii baa duubtay garan maayo gabadhiiba noocii dharka Francisca Paris ku xayeysiin jiray bay noqotay marka fartuun balbalaadka ka bedelay fartuun duduubka way maanta fartuun duduubka magacaas aan u bixiyay Soomaaliyeed dadka wixii u barataan kalama hartaan gabadha balbalaar qofkii ugu yeera fartuun ay qofkii kugu yeera balbalaadka waa qof kula dagaalsan ya dagaalna ka xig fartuun duduubka tahay fartuun duduubka isteelkaaga marka arkay runtii anigu waa ajabisay waxaan idhi fartuun balbalaadka oo gabar ya waxa weeye iska dhaaf Soomaaliya cadaan bay idinku soo dhigan lahaa oo idinku damci lahaa baa hadii maanta waa la qabaa alxamdulillah rabbil alamin guri barwaaqo ku jirta guri qurux badan bay ku jirtaa Soomaalidu waa xasad badan tahay ishoodu waa kulushahay waxaan jecelahay anigu ilaaheeda ku jirto laakiin hadee garoob maanta aan lahayd marka u yartahay khayriye farmaajo isku baxsan lahaa gabadha xajmiga quruxda samcada waxa ilaahay u dhiibay lagama hadli karo fanka wuxuu ku soo gashay si xawliya waa la socotaan dad badan baa isku dayay lacag kaga baxday diyaarada u fuulay meelo badan u istaagay
fanaaniin caana daaqada u qabsaday si ay u qarxaan oo ilaa ay hadda jugjug ay meeshaada joog meeshii ay fanka ka soo galeen taagan fartuun balbalaad oo weli waxa weeye maalin baa waxa la ii sheegay la isku dayay iyadii xasan aan sabtarin la isku geeyo inay wada heesaan cilada farsamo darteed iyada ka cudur daartay ma garan karo bay u suurtagal weeday laakiin fartuun balbalaadka oo le waa la heesaya ama hees la soo qaaday fanaaniintii waaweynaa miyaa aragteen maya magaceeda ku filan iyada waa qof iyada isku filanba laakiin fanaaniinta gabdhaha hadda soo galay iyo wiilasha hadda soo galay mid walba iskuma kalsoona ma aaminsana inuu qarxi karo oo hees soo qaadi karo ilaa uu qof kale magacii isku luxluxo oo qof kale maxaa ku dhahaa ku dhufso ma aaminsana laakiin fartuun balbalaadka hal sano ku jirtaa maanta waa aragtaan magac iyo maamuus waxaan idhi gabar baa tiri iisoo ducay fanaanada waxaan idhi ilaahay hadduu magac iyo maal iyo maxaa ku dhahdaa muunad kula muwaagay fartuun balbalaadka sideedaa uu ku ekaysiin lahaa oo codkaaga halaasi uga dhigi lahaa oo muuqaaga mid waxa weeye noocaa uga dhigi lahaa laakiin ma dhicin laakiin waa kuu ducaynaya ilaahay halkaa balbalaadku martay ilaahay ku mariyo hadduu ilaahay iga aqbalayo ducada gabadha inuu waxa weeye u aqbalo baan rajeynaya idinkuna aamiinta ii soo dhaha marka fartuun balbalaadta heesteeda maanta waynu eegaynaa fartuun aad ba horta mid baa uga xumaaday fartuunay kula talinaya wallahi waa kula talinaya dad ehelaan nahay dad asxaaba oo wada xiriira oo talo isku labaan nahay gabarey waxaan idhi laba qof Soomaali waa uulula nin daahir caloos oo dhaho hadalka aan la gaban waa uulula waxaan isla warninka ama Soomaalidu waa ilkulushay ninka ama hadal ama ninka lagu cawriya oo laga raaca fartuun balbalaadna isteel iyo cod ama gabadhaan waxaan tareenka looga tuuraa fartuunay gurigaaga shaadaligu habato saloolka bunka badi baan ku leeyahay adoo sonkor milix wuxuun cadada shandada ku ridana suuqa kuguma ogi isha marka saa lagu la raacayo waa ina shidada ku shito marka heesteedaan eegaynaa ibtilada jacaylka ana la joogo waayo la jiibsan waayo la jahwareere waa ogtihiino heesaha markaa heesta jeceshahay waxa weeye foliumka codkeeda waa dheeraysaa heesta maanta codkaan saa u geeyay markaasaa ku jeer TV-ga ku ceshaday dadkii cadaanka ah oo guriga ila deganaa baa jarjarada ka soo wada daatay oo igu soo wada garaacay markaasaa waxaa la yidhi war mashaakila ku soo booqatay maanta maxay tahay gabadha codkan xalaasiga ah oo aan la arag oo la maqal oo kii shaakiro kale oo guriga ka shidan muxuu yahay mashaakila ku timi markaasaa waxaa ku yidhi maya alxamdulillah annagu shaakirada ay sheegaysaan maba naqaanaba balbalaadka fartuun dhuudhuubkan haddaan u bixinay baa naloo dhahaa markaasi waxay dhaheen jarmalku waa la socotaan dadka cadwaadada la waxsiiyey fankana aad bay uga dumeeyaan gabadhaa haddaa shiino culayow nugu soo xiri karto tani shaakiro waaba shaakira dila nooken Germany fiisaan u direynaa walaashay arrintaa waa usoo bandhigayaa waxa weeye haddee kharashkeeda iyo waxyaalaha oo dhan waa la daboolayaa kelmad ku jirta shaakuliya la dhaho kelmadaas shaakuliya balan ku celiyo ibtilada jacaylka aniga la joogso waayay oo la jiifso waayay oo la jahwareere shaaniya midhaha xagee laga heli karaa waayo abwaanka aniga ii sheega Soomaaliya ii sheega abwaanka midhaha tin kara ii sheega hebel weeye idhaha Soomaali way istaqaana waa 10 milyan weeye kumba far abwaanna ka ragga nooca tiri kara waayo nin qabri ku jira aniga hay sheegnina iyo mid sariirta saaran toona gaariyo tiisi ay noqoto tagay hay sheegnina sangub hay sheegnina waa tagay ma noolo hadda waxma tiri karaan hadraawi ilaahay caafimaad ha siiye oo maanta waxa weeye de waa yeel hay sheegnina dadka maanta wax tiriya oo dhaha abwaanaan nahay bal midhaha ninka sheegi soo tirin kara oo soo tuuri kara aniga ii sheega xasha ma jiro balbalaadka midhaheeda iyadaa samaystaan u malaynaya sababtoo aanu da abwaan noocaa samayn kara anigu ma ogi meel kuma ogi marka waxa weeye kelmadda shookuliya dadkii caddaa waxay ugu dhaheen kelmadaas waxay u eg tahay kelmad Isbaanisha waa sababahan u malaynay in shaakiro gurigaaga soo boqoto ka heesiso oo hees cusub ku duubayso anayna wax duubay ugu ogaayay saasa u qaateen maaha irshadaanka iska naara marka fiisahaasi diyaar weeye waxaan aan ka codsanayaa
qofta la yiraahdo balbala dhudhubka fartuun dhudhubka waxaan ka codsanayaa fartuunay de waxay ila tahay kin jaamci aalta in la qaadulaysaan ba maanta heesta lagu soo beegtay sababtoo ah kin iyo aalta oo ala socotaan inay sanad hees la soo rafanayeen hees jeel caashiqna la soo rafanayeen maanta markay soo saareen oo afar bari ee YouTube-ka ugu jirto oo waliba cid badan aysan u gaarin ina tan ka daba keento de waxay ila tahay dadkaas ku tala gashay ina ka kala daadiso oo waxa weeye suuqa maxaa ku raadlay laad miina kaga saarto marka fartuunay hadii ilaahay cod ku siiyay hadii ilaahay muunad iyo maxaa ku raadlay joog ku dhiibay fartuunay horta dadka walaalaha ah qaadulaynta kada waxa kale oo la ii sheegaya gabar la yiraahdo fiska oo waxa weeye ilaahay iyadana cod u dhiibay iyo qoftii la oran jiray Xalimo Gobaadiyo baa heesa soo wada sanadka oo hadda waxa muddo badan tacab galiyay oo waxa isleeyihiin 2020ka ya koobka idinku qaada ar 2020 lagu kala bax hees ka shidana ma soo bixin kana dameemayso oo igu wala joogan marka in leeyahay ka jooga Gobaad iyo fiskooyi waxa u soo socotaan waxa weeye kiin jaaco islaadan ku qabsada wareeg balbalaarka timi ya nabareedin filayn baydu ku dhacay marka waxa idin leeyahay kharashka iyo hawsha badana galeysaan 2022 u dhigta laakiin 2020ka ina hees maxaa ku yiraahdaa koob ku qaadaan oo balbalaarka dhudhuubka dhaaftaan xasha wujud ma dhacayso joojiya marka idin leeyahay hadda waa la heesaa oo soo heesisaan oo isleedihiin yaan taageerayaashiina intii idin dhagan nuguladiyay idin laawin hadda u soo heesisaan de Soomaali maanta mikrofoonka waa wada qaatay iska soo qabsada laakiin hees koobka 2020ka la idinku siiyo ku qaadaan bookaalta inima banaana marka waxa weeye heestaas anigu haday joog tahay haday jamaal tahay haday mira tahay haday cod tahay waa ka qayliyay waa iga gadan tahay fartuun balbalaarka waxa leeyahay fanka si fudud baa ku soo gashay laakiin waa huba si fudud uga bixmaysid halka ka hay waa ku soo casumeynaa tii Jarman noogu timaado oo nagu soo booqata Allah ka dhigo Yurub oo dhan waxaan huba gabadhaas Soomaali aan ka dhalateen ee Hindi ama Mareykanka ka dhigan ka dhalan lahayd ka warramay balbalaarka dhalan lahayd bal ka warramay bal suureeya maanta xagee joog lahayd Rihanna iyo dadkaas bay casriya la cab lahayd Rihanna iyo meelaha waxaan hilbasara ahayn ya wax laga ma siiyeen laakiin Soomaali bay ka dhalatay anigu ben alaay ya idin sheegi maayo fanaaniintii hore oo codka halaasiga lahaa oo ummadda Soomaaliyeed ay ku maxaa ku hal qabsan jirtay ee Allah u naxariistay magool lahaa ee Saada Cali lahaa wallahi kama samrin ila balbalaarka soo baxday sababtoo ah cid booskooda buuxin karta oo buuxin kara ma soo bixin balbalaarka markay soo baxday baan Saada ka samray Allah u naxariisto jannada geeyo oo magool ka samray oo Sahra Ahmed ka samray Allah u naxariisto iyagana markaasaan ka samray birkay gabdhahaas Allah u naxariistay boosaskay ka garaaci jireen oo ka heesi jireen ya cid ka heesi karta oo codkii magool leh ya oo codkii magool leh oo magool codkeedii soo dhawaysa oo balbalaarka ay ma arag ciyaartii ya iyo gacmi garaaraha lahaa ya ee Saada Cali qof leh oo aan balbalaarka ahayn aanu Soomaali kuma arag gabdhaha soo heesiya iska waa la heesaa maqlay ya heesatan marka waxa weeye hal laaxin baa ku jira heesaa waxaynu naqaanaa inaynu laaxinka ka qabano laaxinka ku jira inay sharaxaya وحرفتن برا سيرفتن برا باشالكن برا بقرتويو بالبلاركا بجاد كده صورة بيبي بيصغنا حبود heesta laaxinka ku jira waxa weeye horta ninku wuxuu yiri inaan kaanu ma aqaani balbalaar darteedaan ku baranayna wax ma naqaano balbalaar darteedaan ku laqay oo ku qaatay inanku wuxuu yiri waxay rabtaan baraya balbalaarka waxaan leeyahay balbalaartu waa macallimad weeye iyadoo inay wax ku barto ma aha oo cod iyo qaab muusik iyo waxa inay iyadoo ku barto ma aha horta aad wax ma bari kartid ya inaad tiraahdo ibar bay ahayd laaxin weyn baa halka ku jira wixii alla ku baray balbalaarka iyo bar halka heesta
saasay ku fiicnay laakiin anaa waxaan ku barayaa saa rabtaan ku barayaa maya xasha wiilow taa kaama siisan talabaad laaxinka labaad oo ku jirta wuxuu yahay boqortooyo balbalaarka waa sax balbalaarka boqortooyo waa tahay laakiinse inuu dhaho bajaaj soo qaado halkaana laaxin baa ku jira bajaaj soo boqortooyo balbalaarka ma balbalaar iyo bajaaj baa dhinacoodi karaa maya balbalaarka boqortooyo balbalaarka Bosch soo ful inuu dhaho bay ahayd Bosch soo ful gaariga Bosch uu dhaho oo Germany-ga ah oo dadka alla wax siiyay 10 shiina culus ku jira ay goosan karaan iyo in daafshiil ya Bosch kala yiraahdo oo suuqa 500 kun lagu baayaco gaariga way gaarigii balbalaarka way gaariga laakiin soo raac bajaaj soo raac ya dhabaxa ku dhufta muxuu yahay waxaasi taana waxa way halkaana laaxin baa ku jira heestu sideeda kale waa iga gadan tahay hore bayna u socotaa shalay soo baxday maanta shalay YouTube ku jirta 400,000 oo daawasho ama maraysa channelka ku jirtana waa balbalaarka official way saarka ugu jirta balbalaarka cidii doonaysa waxeeda hadda wixii ka dambeeya inay macmiil noqoto oo joogsato oo subscribe kugu dhufta nacala shita ku yaal waa masharaxii shilin ku reebay oo idin leh waa inoo bari iyo reaction ya ayaabi doontaan oo aan ka soo sameyn doono heesta aan qowday nimcaan la oo saan soo qaada dhigi doono tani inta barnaamij kala mid ku kulmi doono waxa idin ku dhaafayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh